السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي الكسور دو channel كنا داليا فيلمس iyo filimkan maanta aad u xiiso badan kaasoo ku saabsan dagaalkii labaad ee adduunka askariga ugu yaraa uguna caqliga badnaa ahaana geesigii badbaadiyay nolosha kumanaan qof bilowga filimkuna wuxuu noqonayaa sidan hadda sanadku waa sanadkii 1941 wiilkan yar oo lagu magacaabo Sergey waxa uu la noolaa walaalkiisa ka weyn iyo hooyadii waxaana uu ahaa mid mar walba ku faana walaalkiisa ka weyn maalin maalmaha ka midna waxaan aragnaa isagoo saaran geed hooyadiina waxay joogtay qarka webiga kadibna wuxuu arkayaa mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee jarbalka oo kusoo socota isaguna wuxuu ku tuurayaa baalkii gacanta ku haystay oo ku ciyaarayay isla markii waxa uu suurtagelisay inuu diyaaradii qarxiyo kadibna markuu hareeraha eego waxa warkaya inaysan gabi ahaanba joogin hooyadii balse waxaa soo dhamay waxay ahaayeen Rio kadibna wuxuu ka soo kacaya hurdada isagoo aad u naxsan wuxuuna ku qaylinayaa hooyo kadibna qof ayaa albaabka ku soo garaacaya isagoo u malinaya hooyadii nasiib xun waxa ahayd gabadh deriska isla markiiba waxay u sheegaysaa war aad u xun kaasi oo ah in ciidanka jarbalka ay dileen hooyadii iyo waliba walaalkiisii uu ku faani jiray waad garan kartaa waxa uu dareemayaa ilmo yaroo da'daas ah oo warkaasi loo sheegay kadibna waxay arkeen ciidanka jarmalka u soo dhawaadeen gurigooda waxaana gabadhii darisku isku dayaysaa inay daaqada ka bixiso Sergey si uu u baxsado balse nasiib xun markay sidaa daaqada u saartay isla iyada ay xabad ku dhufteen intaa kadib guriga waxa isqabsanaya dab iyo holac aad u daran Sergeyna wuxuu ahaa mid kaynta dhexdeeda ku sii baxsanaya markuu xagga dambe soo eegana waxa arkaya gurigoodii u gubanaya aad baan uga xumaanaya waxa dhacaya ilaa haddana kama quusan hooyadii oo waxa ku qaylinaya ereyga maama intaa kadibna uu sii cararaya waxaana uu sii galaya kaynta isagoo garanaynin meel uu socdo hadda Sergey waa keligii mana laha wax ehel iyo cida xitaa ma jirto cid halkan ka badbaadisa habeenkana Sergey waxa ku qaatay kaynta gudaheeda subaxnimadii dambe Sergey soo ka cabay webiga waxa indhihiisu ku dhacayaan ciidanka jarmalka oo webiga qarkiisa lugaynaya kadibna uu baxsanaya waxa uu ku dhoomanaya xididada geedaha waaweyn balse waxay kaga sii xumayd markii uu arkay abeese aad u weyn oo ka soo baxaysa korkiisa isla markaasna u soo dhawaanaysa Sergey aad buu u naxayaa balse uu calool odayga ismana dhaqaajinayo muddo kadibna ciidankii way iska tagayeen kadib markii cuntadoodii dhamaysteen Sergeyna wuxuu ka soo baxay halkii ku jiray kadib markuu hubsado isla markaasna waxa uu cunaya cuntada ay ka tageen cadawgu hadda waxa laga joogaa 2 maalin markii uu kaynta soo galay ilaa haddana ma helin cunto ku filan aad ayuuna u daalanaa intaa kadibna dhulka ayuu ku dhacayaa balse ma joojinayo socodkiisa isagoo garanaynin xitaa meel uu socdo hadda waa maalin afraad ilaa haddana ma helin wax uu cunaya meel uu seexdo intaa kadibna waxa ku soo da'aya roob Sergeyna waxa afka u dhiganayaa dhibcaha roobka intaa kadibna waxa iska sii wadanaya socodkiisa kadibna dhulka ayuu ku dhacayaa kooma ayaanu galayaa muddadii uu koomada ku jiray waxa hal mar soo dulstaagaya niman askar Ruushiyaan ah kadibna way qaadayaan waxaana u geynayaan taliyahooda isagoo dhaawac ah aadna u liita isla markaasina aan waxba cunin taasoo cisho intaa kadibna markii uu caadi noqday oo soo kacay waxa uu isbarayaa dhammaanba askartii iyo taliyihii aad bayna ula dhacayaan aqligiisa waxaana askartii u keenayaan cunto iyo biyo intaa kadib gabadh kalkaalisa oo lagu magacaabo Katya ayaa waxay dhaawac agtaa ka dhiisay Sergey kadibna Sergey wuxuu ka codsanaya inay jirkiisa ku sawirto kaare ama taangi maadaama uu mustaqbalka rabo inuu askari noqdo kadibna wuxuu la sheekaysanayaa askarta dhaawaca iyaguna waxay dareemayaan dhiirigelin iyo farxad balse taliyuhu wuxuu rabaa inuu diro xarunta agoomaha maadaama halkani khatar ku tahay intaa kadibna Sergey waxa uu imanayaa taliyaha balse wuxuu aad ugu helayaa bistooladiisa kadib taliyuhuna uu dhibayaa bistooladiisa markuu rasaasta ka saaro si uu ugu ciyaaro Sergeyna waxa uu taliyaha tusayaa kaaraha ku sawiran calooshiisa isagoo weliba ku faanaya inuu askari yahay intaa kadib Sergey waxa noqday mid aad loo xiiseeyo aadna loola dhaco askartuna waqtigooda faraaqada waxay la qaadan jireen Sergey maalmaha ka mid ah taliyuhu waxa uu keenayaa Sergey bistoolad yar oo ka samaysan alwaax isaguna aad buu ugu farxayaa hab ayaanu taliyaha siinayaa haddaba habeenada ka mid ah askartii waxay wiilkii yar u sameynayaan dhar dirays ah si ay uga farxiyaan subaxnimadiina Sergey waxa uu ku labisanayaa dharkii dirayska isagoo aad u faraxsan isla markaasina ordaya waxa hal maragtooda ku dhacaya qarax kaasoo soo rideen ciidamada cirka ee Jarmalka maalintaasna waxa dhaawacmay askar aad Sergeyna waxa uu caawinayay isla markaasina biyo ay cabaan u keenay askarta dhinaca kalena waxaan aragnaa taliyaha iyo Katya oo wada sheekaysanaya waxaanay u muuqdeen kuwa isjecel balse aan isu sheeganaynin haddaba maalmaha ka mid ah Sergey waxa ku fogaanaya xerada ciidanka isagoo sita diiradda balse hal mar waxa uu arkayaa kabta qof ka dhex muuqata meel caws dhexdii ah kadibna waxa uu ku noqonayaa xeradii ciidanka isagoo u sheegaya waxa uu arkay kadibna marka ciidanka halkii yimaadaan waxay ugu manayaan 2 ka mid ah ciidanka basaasinta Jarmalka kadibna waa la qabanaya waana la xidhayaa Sergeyna waxa aad loogu amaanaya aqligiisa haddana maalin kale waxa dagaal soo qaaday ciidanka Jarmalka waxaana maalintaasi dhacay dagaal aad u kulul Sergeyna waxa uu ciidanku caawinayay inta awoodiisa isagoo u geynayay rasaasta waxaana ku sugnaa jiida hore ee dagaalka balse askartii waxay u sheegeen in halkan khatar tahay isla markaasina uu dib u laabto kadib markuu xeradii tago waxa uu arkaya taliyihii iyo kuwa kale oo aad u argagaxsan wuxuuna ogaanaya inay xumaatay korontada isla markaasina ay meesha ka baxday isgaarsiinta askarta waxaana jiray hal nin oo farsamo yaqaana isgaarsiinta ninkiina waa la toogtay kadibna Sergey uu cararaya waxaana u tagayaa ninkii korontada hagaajin jiray oo naftu ka sii baxayso kaasi oo yaalay meel aad u khatar badan wuxuuna weydiinayaa sida loo hagaajiyo isgaarsiinta iyo korontada kadibna marka uu soo laabto waxa uu hagaajinayaa isgaarsiintii maalintaana Sergey waxa uu badbaadiyay noloshooda oo dhan maalintii xigtay taliyaha waxa uu Sergey u sheegayaa inuu noqon doono aabihiisa labaad sidoo kale waxa jacaylkiisa u soo bandhiganayaa gabadhii Katya si iyaduna ugu noqoto hooyada labaad ee Sergey inta aanay ka joogin codsigii waxa
waxaa hal mar taliyo imanaya ninkaasi oo sida warqadaasi oo lagu amrayo inay kasoo guraan saldhig ay hadda degan yihiin. maalintii xigtay waxay u socdaan saldhigooda cusub, balse waxaa hal mar ku qarxaya miino, kadibna waxaa ku dhimanaya qaar badan oo kamid ah askartii, halka uu taliyihiina ku dhaawacmay. kadibna markii ay tegeen saldhigooda cusub, waxaa habeenada kamid ah weerar kusoo qaaday ciidanka Jarmalka. kadib taliyihiina wuxuu ku hoos xidhmayaa burburka guryihii. Sergey ayaana arkaya, isla markaasina waxaa awoodi waaya inuu kasoo saaro ilaa ugu dambeyntii ugu yeedhay askartii, kadibna ay kasoo saareen. haddaba saaxiibayaal, taasi waxay ahayd qisada dhabta ee Sergey. fadlan kusoo biira channelkeeda Daalia Films. mahadsanid.